wixii tagay waxba kama bedeli kartid. ilaahay wuxuu tilmaamayaa wama tashaa'uuna ilaa an yashaa allah. ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto. in allaha kaana caliiman xakiima. bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray. wacasa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum. ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay. weligaa ha moodina wakhtigu ku dhaafay. dadka badhbaa isle wakhtigiiba tegaya intaan meesha fadhiyey inta kuu hadhay cimrigabaa wax soo saar yeelan karta. bini aadamku caqliguu ka gaboobaa. haddaad maanka ka gabowdo ayuumaad gabowde. waxa laga yaabaa dadka badhaysa oo maanta konton jir baad ma waxbaad baran karaysaa. dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimmadii ugu waaweynayay dunida noqday. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yadi axadikum fasiila fain istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisha. nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiila. fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo. geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaadhsiin karta beer. oo innaga iyadoon qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa una leenahay waan gaboobay. soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maha. soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu yidhaahdaa waan gaboobo wax waliba way ga dhammaadeen. ilaahayna wuxuu ina leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin. war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin. ha niyad jabina hana murugoonina. idinkaa koreeya baa ilaahay tilmaamayaa haddaa kuwa mu'miniina tihin. haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan. xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo. qof wax soo saar le ahaw. qof wax tara ahaw. noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay. haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tage ka tag. saa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla almowt in furas jiro inta geerida ka horraysa inaad fursad haysato. fursad wax lagu qabto inaad haysato. waxaad yaraysanaysaa wax weyn noqda. waxaad yaraysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar qur'aana inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha. waxaad isleedahay oo haddaan maalin kasta sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn. haddaan sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn. waxay dhahaan 12 sannadood waad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto. hadda waa sadar hal sadar. waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso wax yaraantiisa ayay kuu muuqanin. haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa. ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta. waayo sanadku waa 365 maalmood. haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa. laakiin haddaad tidhaahdo ma xaashi aan qoray baa buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona. aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa. wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa. taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin. ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono. ma garanaysid inta ilaahay adiga jaanis ku siiyey. adigoo waxa ku xilka ku saaranay wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira. aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo. dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen. jahliga fadhiisiyay. beer si loo qoto ma garanayo. wax kale si loo sameeyo ma garanayo. aqoon si loo barto ma garanayo. jahli baa fadhiisiyay. jahligu markaa dadka uu duleeyaa. idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوة الشيء يا قونتا كمدة تقدر توقف أيضا له جهلني ما هيساتا. ولو حوق بدني ولو الذكاء جيسو intelligence kiisu uu sareeyo walow aqli badan yahay mar haddaan muntaj hayna wax soo saaraynin. waxay yiraahdaan nolosha waxa qiimaha ku sameeya
ma aha inaad caqli badan tahay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidna waxba kuu kordhin mayso oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana wuu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay waxay yidhahdaan daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen wax qabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen maanta waa kuwan yiraahdaa xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuurto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisa ba khatar ku jira ka kale nolosha inaad wax tar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagi ba khatar galaya ولذلك بقى طبعا ما انت واحد tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskaliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii inta soco inta qabo inta yani waa wax qabo fadhigu marka aqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna aduna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male ayuha alhibba ajsigu dad buu gaaray inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan أعجز الناس من عجز عن الدعاء dadka waxa u caajisnimo badan deninka awoodi kari waayay ilaahay inuu baryo dadka badh ayaa wax kasta ay qabtaan taswiif ku sameeyo insha Allah baraan samayn doona war maanta aad qaban karaysaa maxaa bari amal kale u dhigo ma ay baraan samayn doona wax kasta baru u dhigaya ama ma aha barnaamijyo iyo barnaamij buu degaya marka suulay insha Allah saasa yeelaya sanadka dambe quraankan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacada ee balas inaan kaga baxo insha Allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubta inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku kaliye waa barnaamij afka ah amal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax amal isuma bedelayo in wax la bilaan gareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaan gareynaysaa waa inuu yahay waxaad awoodo qaban karaysa marka koowaad shay fi maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badhbaa daydreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fikerayso waad riyoonaysaa waxaad bilaan garaysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badhba fulanimo haysaa arma dadku kula yaabaa arma si xul lagu eegaa arma shaki un baaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya arma lagu yidhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin نبي وحينا لي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز مرنا بها عاجز مركي إلهي والنبي يحيى الله هدلي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سحوغن قادب الليل سي جدية سي اجتهاد كتشره سي الددال يفر فرعوني كتشرته إلهي كتابك سو قادب الليل أيها الأحبة مركز وهستطاع ما شوي فوشاه وحين ما أنت قوها بنا إن تقبضت مركز قبض ويدو ويساسي كرتا
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المامية قيب حكو سفين يا قفك مؤمن كاه حقا يسدوغ خير بدن يهي كي ضعف وكتشره. قيبها الدمانة وحكوت المامية النبي عليه الصلاة والسلام وصية وصينا يددك مسلمين تا وحنا بيقول المؤمن القوي مؤمن كحوقاه كاسا خير وأحب إلى الله كخير بدن وألكتي سلقاقتش عليهي من المؤمن الضعيف مؤمن كعقيدة ديسا ما إيمان كيسا ما عبادة ديسا أما أعماشيسا آخرة أي ليدته قوة لشيغيا ومعنى بلارنتي وحق ضوضوبهان تلماميسا قوته حتى